waxaa la fikirsanaa maxamed maame wuxuu u tartamo waa Soomaaliya. maxamed maami oo lagu arkay calanka Soomaaliya magaca Soomaaliya isagoo ku tartami rabo fanaanka ugu fiican East Africa iyo dadka Soomaalida oo kacay oo dhahay Soomaaliya waa diidaneed calankeeda waa diidaneed sidee noo matalaysaa war walaalo miyaadan ilaahay ka baqayn East Africa marka u tartamayso Somaliland ma meesha soo qoratay Somaliland lagu soo qortay waay adiga Soomaaliya uu soo qornay wallahi khalad weyn bay ku dhaceen marka waxaan leeyahay horta reer Soomaaliyeed maada reer raali naga ahaada 90% أنا أفكر رؤوس مال لأنه ركوا هذا يحلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قال واحد يجينا ذوق عفمات خو مقال كانوا ذنا كذا دون تانو جهربا عفر بقولك مسألة نسكراب سر مقال كلا جري كم تيجي نفكر كذا. أوكي على السوشيال ميديا أو العيسو كيس علوس التاج كيس كان وحندونا يصير أنا إلى الطائنة وجهلته يعني قف كاستراء يولي مقطع هذا هو فنان كلمة على محمد مامي أو كم ده فنانين تقالي جرهستي ملين عدو حمر قدر أو حتى سأهان صومالي ممكن لقاها الله ميل فك التاجين ayaa hadaba waxa lagu qabtay faar kadib markii la arkay isagoo isku soo sharaxay fanaanka ugu fiican East Africa wuxuu matalayaa dalka Soomaaliya yaani dadka qabanaya tartankan Soomaaliland ma aqoonsano Soomaaliya aqoonsiin fanaanka marka wuxuu matalayaa Soomaaliya dadka ma ogeen dadka waxa ku mashquulsanaayeen dagaalka dayax iyo waxa lagu mashquulsanaayay fanaaniinta Muqdisho hadaba waa la arkay marka indhihii dadka ay qabteen ana xataa ma ogeen hadaba markii la arkay marka dadku waa naxay warxadeen maxamed maami أنا أقولنا ماشي الصومالي لما ذاك التاجية عالك الصومالي على تسكر مجا الصومالي على مقشين كرين سيدي ما أنت ومثلا يا ذلك الصومالي هذا أنا هان مكسيلتها خرط الصومالي محمد مامي إنه ما أنت مجا الصومالي كتر تمو أنا هان ملحمة ولا يلا محمة معايا الصومال لما حكوها السنة أنا وحيتها واي أصور على الصومالي على الوهستا ومتقارنة ضد كان الصومالي ذو حيران الصومالي إنه مدوان ما دام الربع الصومالي لا الصومالي إنه مدوان محمد مامي من الرقوي وياه دي وأوكي إنه أترتمو ما يح الصومالي وأوكي وأوجا إنسان الصومالي ما تشعله عانك الصومالي ما تشعله الصومالي ما ميرفو كتاعية لكن ساس هاي حلا أقرأ يا لو عمر سوشيال ميديا ولو عمرنا هذا حلي ورشال الصومالي بدي دنينه ورشال ملهين وعدو حمر كدر ملهين سيد نوتر تمسا سيد أنا ما قاعد نوتر تمسا محمد مامي أسبوع عن كلية لو فار لو سقطت تنكواد وشوقي جبوت أولودي تلوادنا واحد أو فاروين لو سقطت مركا أني وركي يكون إن محمد مامي أو أوتر تمو متقانا بقى الصومال أو أوتر تمو فلان وفي إست أفريقيا الصومال المتلعب إلى محوما معايا لي وحل الروا وإن سومالا الصومال إيه مدوان مركا حترتم soo dhaweeya ka daaya camirashada ka daaya cunsurima tan oo kale waxay mataqaanaa sababaysa in la sii kala fogaado oo meelo marka hore la taagna ka daran meelo ka daran in la sii gaaro marka maxamed maami oo saaxiibkaygu soo dhawow Soomaaliya waa matali kartaa waa wadankaagi xura u tahay matal waxay daawtiin had dadkii oo faar ku soo qotay maxamed maami oo leh magaca Soomaaliya Nordic caalamka Soomaaliya Nordic ma kaliisatiin bal daawada qaybta kuma tahay muuqaalka xiriirada wadaag waxaa la fikirsanaa maxamed maame wuxuu u tartamo waa Soomaaliya. haba u tartamo maxamed qofka waxa gadoonsiinaya ee jaa-isada siinaya yaa waa midkhani dayax daluusha xalfada asiga dadka wax gadoonsiinaya maxamed maame wuxuu matalo waa Somaliland maaya guys si faa'iido dhigeysta Soomaaliya waa Soomaaliya marka wallahi sharba boy bilaash mudin marna u soo dalxiis marna ka raadi bariis كتب كمرة بده ودخنكي إبليس ده يحضرنوش إمامي أدرس أركان كورن أو مامي كقوليست أو ده يحضرنوش واحد دوسي بل هذا فكر كاي كومنتي وسخر أنا سأو يا بنا ودالي فيري أنا دجال كلمة كفاية سنة ولا لو ولا لو ميادن إلهي كبخين إيست أفريقيا مكا أترتمس Somaliland ma meesha soo qoratay Somaliland lagu soo qortay waay adiga Soomaali uu soo qornay Soomaali waa ka go'ana dhahdeen 30 sano ka hor ilaa hadda la faaawiltin la fi wax waa ku weydin walaalo Soomaalidan fara kala bax waa adiga dhahay ayaan dhaweed hargeysadeen yaa nool imaanin anaga xamartiini iyo Soomaalidiima واي أمشي أوصل قرن الصومالي أو ترتمى هذه يكوبك له وأحمد ديال أساس ريد
nin isteel ku garaacayo labis ku garaacayo cod ku garaacayo aa wadna aniga the king of city dayax dalnuush adina kaasud حق مركينو جيش على البدء انا سأل لك تطور تاني قولوا بالله غيستو انا ماشي اس قبر مديرين انا يا لغا كفسن انا قبلين مرة من اللي كفسن ماشي اس كجوك دad kale anaga soo dirsanayna labadan fanaan ee halkan kaaga kala muuqato kan waa Maxamed Maami kana waa Saalax Sanaag labadan fanaan waxa ay matalayaan East Africa waxayna ka socdaan Soomaaliya oo hal wadan ayay ka socdaan hadda ma ahan laba wadan ma ahan Somaliland iyo Soomaaliya ma aha hal Soomaali bas ayay ka socdaan hadii aan been sheegaya Maxamed Maami waa tii kartin page-kiisa waxaana ku jiro Soomaaliya ayaa ku jirto Soomaaliya ayuu matalaya labadan fanaan kan soo baxaya ee noqonaya fanaanka East Africa waa kee labadaba hadii noqdaan inay soo baxaan kan East Africa fanaanka noqonaya waa kee taas waxaaba ka sii daranbo meeshaas waxa lagu soo casumay ama marti sharaf ku ah Dayax Dal Nuurshe oo furi doono barnaamijkaas noqon doonana kan dadka uu maartay maxaa u yeeri doono dhihi doono iyo maartay waxa tahay guuleystaha tahay guuleystana washqadan loo dhiibi doono hadaba daawada adiga haatan daawanaya Dayax Dal Nuurshe hadii washqadaas loo dhiibo oo ay ku qoran tahay Maxamed Maami wuxuu sameyn doonaa laakiin Dayax Dal Nuurshe aqaana nin qalbi xaaran waay nin codad iyo waxaas qowmaan caadi ayuu ugu yeeri doonaa sababtoo loogu wacay oo looga dhigay asaga kaligiis special guest looga dhigay ayaa meesha ku jirto wax loo doortay ayaa meesha ku jiro waa heybad asaga uu leeyahay nin ma ahan macnaha caloosha wax ku haynay laakiin guuleystaha Saalax Sanaag iyo Maxamed Maami أنا وأنا بسوي قفت نقولنا لو ضم كسكو ماذا نقول استها هذا هو اللي دين عدي فتبا كقاضي وحاس كومنتي كسو قرأ واكيك نقول استها وهذا السلام يا سومالي لأنه ودن مين هذا السلام يا رال نقول باي باي عشان أنت ممكن مالهم بيش عن أبريل أو كجورنو ترتن فنانين أو إست أفريقيا أي أفريقيا دم عصا سعود إنه دعو فنان كستو ودن كيسو وفر يعني برسنت جرينا يا ودن كيسو أوكي محمد مامي ترتن كجورا oo waxa laga yaabaa haduu raayo in bilad la siiyo wadanku u fadhiyana maxaa waaye Soomaaliya reer Soomaaliland bifur ana madaxay soo goosanina oo u jeedin TikTok account-kiisa ku dhex jira asiga naftigiisa soo dhigay tartanka Soomaaliya waxa uu kale noogu jiro Saalax Sanaag iyo wiilkan wiilkii ma arkin waxaana u maleynaa inuu Dayaxda I'm not sure okay waxa u maleynaa Dayaxda Nuurshe inuu bilad siin doono fanaankii raayo waxaa ku jiro Nigeria Tanzania ugu badan bismillah ma qaf fanaanina tartankan ka soo qayb galeen Kenya Rwanda wadamada ka soo qayb galeen aad u badan yihiin laakiin Tanzania ugu badan aniga marka wax u vote gareena Saalax Sanaag waxaana rajeynaa Saalax Sanaag markuu raayo Dayax Dal Nuurshe bashqada furo oo the winner is Saalax Sanaag soo socdo stage keemaado Dayax bilada ku gudoomsiyo dhawaan adiga raasaho so yeah adi peace in Soomaaliya dadkiina maanta dhan ku haynaya heesta anaga iskale heesta kanba iskale midreesh abxabashi ku soo heesta idinka soo qaato ilaan ma fahmayo Soomaal laakiin tanide waa luqadaydi walaalayaal luqada loo dhiga ya Soomaaliland dhaheynina maxaan ku dhahayaa amxaara nala dhalatay oo xamar waa inaan cabtahay oo anaga de walaalayaal luqada iska dhigay doonta waayahay heesta ada af luqadayda ku soo heestaan de wan soo qaadani habeen baa soo qaadani maalina soo qaadani waxna ka bedeli kartaan soo waxa garteen ma hadii arun sheegaysaan ma taqaanin dhiga luqada oo waxa dhigtaan midabka dhiga oo dhulkana ka guura markaas ay ka soo dabay maxaan ku dhahayaa idinka soo daba hadalno laakiin luqadii baa wadataan markaas aliyadana heesta dhig midreesh kan Axmed Isaaga caadi iska dhigo yaa liiga dareemin meel u socotiin meel kale waa wareer.com wala caadi waa wareerteen ma fahamtay maalinta ka dambeeysan waxa u maleena hadda miyana hayn fanaaniintan hadda ku heeseen nimcanay Ruus iyo kambuurane heblow amiin isku sheegayo ya maxaan ku dhahayaa iyo midka kale maalaa yacniga kobaha dhunkan ya miyuna hayn kubi hadeer maxaan ku dhahayaa xamar ka soo heesayo oo ka soo tuugsanay هذا روش شيء صار حد كراد يصير باشا يا والله يا البنت يبربغان دل يوحن ما لا يعني يوحن شريني عروضا مساكين أطوال سانشوتشي هستنا دقة أو وحوي هسينا نود دايا وقتك كورة وقتك كجورة لوك كجورة
عر أيدك أفرم كسر هاس ده ولا ويدك أربط هاس ده أو محن كنا ده أورمان أن جعلنا ده كسر هاس أفرم عر أن سوقته لا رجلت تجرب بيو سلامات بكل آفات ملين على حمر كتر قروي كوحيتا وحايد حقا أمحار حمي شرفي غولان ودعيات وخلدين هستو خلدنتا لا سعاني يكوح انت ما يقريها وطا waxa iga xiga amxaar bay ahayd ina ka dhigtaa ila la sacaanood bad islayseen ma garaway waxaad islayseen iyo xamar meesh dagaal ku qarxayso la sacaana ma ahayn garaway goormeel ugu dagaalama intii yarada hiil harti ee niiqda ahayd hadda intii yarada hiil harti miya garaway loogu soo dara tula xamarra maxay samaysaa annagu garanay والله بلا dadka xamar jooga calool ku qaad male markaasay qofka yimaado iska soo dhaweeyay waa hadda waa la caayay la soo dhaweeyay hebel fannaankayga soo dhawo xabiib balaayi allah astaghfirullah kuwii mahuraan baa la oran jiray garawa joogay oo garawa ka hadli jiray oo heesaha noo qaadi jiray dharka isku eegwatay 25 sano dharka isku eegwatay maalintii cali masaarka dani bay xanaaqeen hadda isha naga eegaya mac sokor مع سكر بكوهايا قربة أباهنا نسوق قاعدة دنك كدجال بقرحي خالد كامل يدا يحضر وش اسكو بابا على نكاس دا يحضر وش ديك الصومال اللي مدكو وينه واسكو بابا يهرف بيسكو لا تجين الله حاسب أنا كرميني مهوران بان أنا مسوي هسنا وحقيقة ضرب فنان كي بوظفه أنا قبيلي هستناتي أنا قلت ما أنا صومالي وحاجة حبش الله لينتينا واقل وإلا والله ليننا باندل بضا ليننا باندل بضا سكع ليننا تا كل ويسوي ساي حتى تقضى ليننا وي سلام يا ما عرفتي ترى الصومالي ما بقلي ترى الطوب هاي ما عرفتي ترى ما ندورنا ما نهرب له توبيا ولا أنا يا تو ولا تقول توبيا ويا الصومالية يا بلاد waxay dhibaato noo daysteen iyo siday noo baabiyeen iyo diyaaradaha yadii intay ticiyeen ay noo baabiyeen iyo siday noo laayeen ilaahayna weyna waaxid waada ma arti tarna Soomaali ma baqli taro toobay haayeen ma arti tarna mala doorayna mana rabno tu amaanta yana suulaan tu qaxnay ayaa walaalanaya toobay walaalanaya haye maxayna tara weyna laayaan وين الله يارون أساسا باس نمر يلا أساسا بين هذا بس أساسا بين هذا ما أرتي ترى الصومالي ما قاتلي wareer Somaliland ilmaade reeyal ceeb ay nadu taala marka run la isu sheegayo war ilmaade reeyal 10 fanaan ee calooshooda shaqaysayaashii ilmaade reer Somaliland maamudi kiride reer Somaliland maamudi kiride حمامتي كريدين والله السيد عادية محيي هذه مشروع عدم حمل مليهن عدم حمل كتران يا ورنا وحنا ولا نهرت الرئيس الصومالية الماضي الرجال أنا أفكر الصومالي اللي أنا ودمكوا الله وحنا لا هي أنا وضدك لما سعنا توبن كفناني على شو شقص ياشا أنا ذا أنا لما سعنا أنا غير الصومالي لان هتانم هاي تطول على هاي بتسين تدنا جعلنا هاي باتسين مهما صوماليات باتراها نينو تركي كما كنا تقول ما فهمتين adduunka inta joogno ma kala hadhayno aakhiro mooyaane adduunka korkiisa kuma kala hadhayno reer Soomaaliya dad walaalaha ay baatiin dad jecelna baatiin dad nala dhashay baatiin garabkayga baatiin dawlad waxa la isku hayo waxa la isku yahay baa ka weyn ma fahantay marka deynaynu dawlad isku hayno iyo inaynu siyaasad isku hayno ma ahaane wada dhaladku marnaba walaaltinimada walaaltinimadeenna ma baabaayso marka waxaan leeyahay reer Soomaaliya guul iyo gobonimo ha noo qabanina 10 kan calool shaqaysta ha noo qabanina anagu wana weeyday wadana mar walba marka waxay yiraahdeen waxa naga xiga amxaar miyaan sheegi karaya miyaan dhageysan karayaaba miyaan dhageystay waan dhageysan karayaaba dhagahaygu ma qabanayaan marka walaalka muslimeed oo kula dhashay oo dadku ugu xiga inaad tiraahdo amxaar bay iga xiga dadka wallahi khalad weyn bay ku dhaceen marka waxaan leeyahay horta reer Soomaaliyeed maada reer raali naga ahaada 9%
أنا أفكر سومال لأنا بدك هذا يا حلا ور الماضي الوان ذيك الرالي قاليننا ده طبعا كعقفنا هنقولنا iyo kaasoo liri waabuwankii heesta sameeyay dee ma garanayo malaa isagaa markiisa hore calooshu xanuunaysiyo dee ma garanayo wax lagaga baxay dee malaaye yaa waa ka tumanka fanaan dabeetana iyagana dhiiqa lagu geliyay annagu reer Somaliland haddaanu nahay ilmaade reelna waxaa kuma jirno lamana soconno ma fahanteen marka ilmaade reeyal guuleysta baan idin leenahay reer Soomaaliya meel kasta joogtaan baanaga walaalahay baatiin garbaha iyaga tiin marna ma meel kaga goy karnaa ma jirto waxaan idinku yiri idoorku gaalka iyo qofka Soomaaliga ah gaalka jecel sanadu waa 2025 24 waa la dhaafay يعني 2025 بعد بلوين inooga hadhay يعني wax yar oo kooban baa inooga hadhsan amxaare u niikinayaan marka amxaaro dad fara badan oo xitaa suugaanyahana waan wareystay waxaan kaloo raadiyay xogta abwaankii sameeyay waxaa la yiraahdaa daacagaas baa la yiraahdaa in hebel daaca qoran baa la yiraahdaa waa daacagaas wax samsi daacagaas baa la yiraahdaa horta daacagaas wuxuu dhashay 1927 mise 87 ba mise 76 meelahaas oo dhashay inta u dhaxaysa aabihii T-Bay buu dhintay aabihii T-Bay buu dhintay hooyadii nin warsageliya guursaday way kala tageen nin abgaala hooyadii guursaday xamar buu ku soo koraysan waa sida caadiga ah kadib markaa muqdisho joogi jiray yaraantiisii isaga iyo walaalihiis ka yaryar kadib waa la soo raray historiga aniga dad xogogaala baa aniga ii sheegay ninka marka hooyadii nin abgaala baa qabi jiray oo aad u ciqaabi jiray nin abgaala oo la igu sheegay inuu yahay Daa'uud abgaal Daa'uud baa hooyadii qabi jiray islaantana sida dameer camal buu u rari jiray horta ninka cuqdadii baa haysa marka iyagoo yaryar oo da'doodu aad u yaryar tahay oo 7 sano 8 sano 9 sano adigu ilaa 10 jir meelaha uu yahay bay xagga waqooyiga ku soo noqdeen dan 1988 waatii Maxamed Siyaad Barre uu aakhira ka xidhay nimanka marka cuqdadihii baa horta isugu beerbiiray koow cuqdada koobaad odayga abgaalo islaanta hooyadii kaga sala waarin jiray koow labo Maxamed Siyaad Barre aakhira ka xidhay marka Maxamed Siyaad Barre tag odayga hooyadii ma garanaysaa qabeen dhimay baan u malaynayaaba ma garat marka ninkani cuqdadaas horta haysa waxaan kaloo idin sheegayaa umada Soomaaliyeed nimankaasi Soomaalinimada dheeraad bay ku yihiin Soomaalinimada culays bay ku yihiin ha laga tirtiro Soomaalinimada waayo Ethiopia oo dalkeeni meel kasta joogta nafti Ilaahay hadda caaw haday qorsheeydo Ethiopia meel walba Soomaaliya waa ka qabsanaysaa meel walba Soomaaliya way qabsanaysaa marka inagu Allaheen alla yahay oo xitaa qaar madaxdii diidayaan in Ethiopiaanku meesha ka baxaan bay iyaguna amxaar u yeeranayaan waxay leeyihiin wax saas oo kala ko garow yaxsaas jooga annaga macnaha amxaarka annaga aan ka jecelna marka waxana waa ilmo bucur bacayr asliyana sida aan taariikhda ku maqlay isaaqo waxay ka soo jeedaan ardul xabash bay ka soo jeedaan oo odaygii Sheekh Isxaaq ahaa Allah u naxariisto qabrigana ha waasiyo oday Soomaaliyeed buu ahaa Sheekh Isxaaq bin Ahmed baa la oran jiray Allah u naxariisto odaygaasi gabdho bas buu dhalay wiilal ma dhalin wax wiilal la yiraahdo dhalay ma jiro dhowr gabdhood buu dhalay dhowrkii gabdhoodna mid khaadimkooda ahaa oo bucur bacayr la oran jiray baa ka adeegin jiray anigu saasan historiga ku maqlay laakiinse waxa weeye Soomaalidu waxay sheegtay waxba ka jiray baa anigu idin caay maayo aflagaadana ma laakiin sida historigu yahay weeye anaga sida caadiga daarood markii shan yihiin hooyada doombira xaaji dir baa la oran jiray gabadh laan dheeraah oo qurux badan oo dir ah bay ahayd waliba qolyahan qubayska la yiraahdo yahay ma garatay annaga xitaa wala garanaya hooyadeen meesha ka soo jeeda tafiirtina wala garanaya aabaheena nin yabaniya buu ahaa daarood bin Ismaaciil baa la oran jiray laan dheera dhalay buu shan wiil buu dhalay shantii wiil way sii kala tafiirmeen xitaa fiiri structure-ka bal fiiri harti iyo koombe iyo kuumada fiiri wax xitaa waa wax isle iyagoo habar awal habar maxbuus habar jeclo habar ciida gale habar ayuub habar magaranaysa dhooqa gale waa wax saas oo kala habar arab habar magaranaysa ku habar awal balaayada iyo baaskii weey marka idoorow awalba waxa way bano xabashada haydeen Soomaaliyana idin ma baahna muuqaalkan hal isgaarsiyo dahagaasna waxa leenahay hooyada ninkii wax dheer ninkii ciqaabi jiray darteed Soomaali ma garanaysaa haw nicin hooyada iyo aabaha waxa leenahay hooyada af dheereed baa laga yaabaa hooyada dhaqan xumeed marka nin hooyadii dhaqan xumeed wala dhangadeynaya islaanta dhaqanka marka waxba Soomaaliha ku galgalanin Maxamed Siyaad Barre tagiyay
hooyada ninkii qabay xitaa waxaan xogta ku hayaa inuu dhintay oo dagaaladii Soomaaliya uu ku dhintay dhowr iyo 2004 biloodkii meelaha inuu dhintay baan maqlay marka aad baan uga xumahay ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo halkan ilaahay uga baryaa inuu qolada hawiyaan oo qaraabadana hawiye ilaahay caqliga ha u soo celiyo ficilka Allah baro ilaahay subxaanahu wa ta'ala